بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha badan meel kasta oo aad joogtaan halkan waa kanaalka xog iftiinshe iyo anigoo Xasan Mawlid Xusni ah oo idin soo deyn doona barnaamij aad iyo aad u qiimo badan kana hadlaya dhiirigelinta nafta haddaba maanta waxaan maanta idin hayaa oo halkan ku soo deyn doona 5 talaabo oo cajiib ah oo haddii aad sameeysid joogtaysidna kor u qaadaya heerka kalsoonida naftaada haddaba waxaan intaan u gelintaa waxaan u geli doonaa waa maxay kalsoonida naftu waa rumaysnaanta aad aaminsantahay inaad waxa qaban kartid kalsoonidu ma la dhaxlaa waa su'aasha labaad idan isweydiinta mudan kalsoonidu ma aha dhaxal kalsoonida naftu weligeed lama kala dhaxlo waa wax la barto waxana is oran kalsooni darada waalidka baad ka dhaxashay haddaba haddii aanad ogeyn kalsoonidu waxa ay tahay iyo in la kasban karo in u galno 5 talaabo oo cajiib ah oo heerka kalsoonidaada kor u qaadaya qodobka koobaad si positive ama togan ula hadal naftaada si aad naftaada ula hadashid wax ay saameyn ku leedahay kalsoonida naftaada haddii aad yastid naftaada ama eriyo liita ku dhahdo kalsoonidaadu hoos bay u dhacaysaa haddii si aad naftaada eriyo rajo ku beeraya oo dhiirigelina ku tidhaahdid oo positive waxay kor u qaadaysaa heerka kalsoonidaada markasta dhowr cadeys si shuruud la'aan lana saaxiib dadka farxadda iyo qalbiga wanaagsan qodobka labaad ha barbar dhigi naftaada dadka kale haddii aad barbar dhigtid naftaada dadka kale waxa aad waayi doontaa kalsoonidaada iyo karaamada naftaada karaamada sharafeed ee naftaada haddaba si aad uga fogaatid inaad dadka kale isbarbar dhigtid samee arrimahan ku qanac waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay oo ku kalsoonow fahan haddii qof wax kaaga fiican yahay adna waxbaad ku fiican ogow adduunyaduna isku dhama maaha si fiican u baro naftaada aqbal waxa tahay haddii aad naafo tahay iyo haddii aad jirkaaga wax ka dhimayba ilaahay wuxuu aayad quraana ku leeyahay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim insaanka ma bil aadanka sidii ku qurux badnay ayaan u abuurnay marka cid kula mid ma jirto oo ka qurux badan kaana wanaagsan qodobka saddexaad qurxi muuqaalkaaga si fiican u labiso nadiifi jirkaaga si fiican oo qurux badan u xiiro oo aad kalsoon tahay taas waxay kor u qaadi doontaa kalsoonida naftaada qodobka afraad hor istaag muraayada adoo dhoola cadaynaya subax kasta sidoo kale marka aad muraayada isku fiirisid ee aad aqoonsiin adigu tahay taas waxay kor u qaadi doontaa heerka kalsoonidaada qodobka shanaad samee jimicsi joogta jimicsigu waxa uu yareeyaa walaaca ama depressionka waxaanu kor u qaadaa dheecaanka maskaxdu soo deyso ama hormoonka maskaxdu soo deyso ee loo yaqaan serotonin kaasoo heerka maskaxda kor u qaada haddaba daawada haddii aad ka heshay dhiirigelintan qiimaha badan ee ku soo xulnay waxaan insha Allah ku dadaali doonaa haddii Ilaahay ka dhigo inaan barnaamij qiimo badan oo dhiirigelin oo bulshada ku taraya soo day doono si haddaba dhiirigelin uu noqoto barnaamijkan si share garee sidoo kalena hala ilaabin in aad subscribe saartid aad iyo aad baad mahadsantiin